السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان برشة الصوماليات ملكستوي شوكتبا خاصة كوا غير خاطمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو قوري سوحان مهدو علينا بعض الصحافة كهول قشة دقانا قول كعين ورنتي بريها كان سيها قرلان لأني يرفع فرعون وشقين يسد برشة ay ku sugan yihiin aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya. waxaan rabaa inaan ka hadlo kaararka codbixinta ee maamulka Soomaalidiidka uu ka wado deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo bariyaha kan aad moodo ama ay cadahayba in deegaano aad u fara badan oo aanay hore ugu dhiirin jirin inay ku dhiirinayaan inay tagaan. taasna waxaa sabab u ah waxaa ogolaaday nidaamkii hore ee maamulka Khaatumo oo heshiisyada kula galay magaalada Hargeysa, Caynaba, Jabuuti oo muujinayay in maamulka Khaatumo uu ku biiro Soomaalidiidka gobolada waqooyi. taasi waxay sababtay in ay ku dhiiradaan guud ahaanba deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn intooda badan inay ku dhiiradaan inay geeyaan kaararka codbixinta. waxaa ka maraga oo ka markhaatiya qoraalkan ay saxeexeen muddo badanna uu ku taamayey hogaamiyihii hore ee maamul goboleedka Khaatumo sidii wax loogu darsan lahaa in badanna run ahaantii aan isku haynay oo ay caddayd aakhirkiina ku soo gabagabowday qodobada halkaa ku qoran ee ay saxeexeen isaga iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka. wax wada lahaanshaheena wax wada yeelashadeenna isku mid ahaanshaheenna horumarkeenna waad aragtaan ummadda reer Khaatumo meel kasta ay joogtada wixii la saxeexay وكا تاسنا waxay dhashay in maanta loo kala dheereeyo oo loo kala ordo oo dadkii shacabka ahaa ee reer Khaatumo annaga cod badan meel hebla tira badan baa ka galaysa gudnimada in loo kala dheereeyo loo kala ordo waxa baday hoggaan xumadii siyaasad xumadii maamul hoggaankii hore وكفل بالشدة غير قاطنة وحيكون أفقاضة سياسة دي نوع صحيح وهم بالينته هنا على ورابه هي أسكرتها سراكيش الشيغاتية سومالي لان ومر بقيدها هي ملاها كان شراكة يريد الجلس وبالقلب وحنقول دقيقة بالشدة غير قاطنة ملك استوى تشوغان هنا أنا قاضن كارك إن أنا كقريب قلنا ديوان قلنت هنا محاكم هذا وح أيليهن هنا في حلان هنا محاكم هذا عاد بمحنوق بورنيا والسياسة دي بروفيسور كم أما هو جاميه النهر هنا على ورابي كسو أفقاضي هنا على ورابي كسو أفقاضي هذين على ورابنا قولنا نوليه والله هذا البانولان waxa uu ka yahay hadda meesha idinba waa dadku way sugi waa la iska warqabaa sheekaanina cali waraab halkaa u dhaafsiisnay waxay ku soo afgooday in maqaamkii iyo jiritaanka ummadda reer Khaatumo marba in cali waraabe iyo afar askari wax laga weydiiyo waa wax laga xumaado aan bulshada reer Khaatumona run ahaantii uga tacsiideynayno. qoliyaha ku dhiiranaya iyagoo tixraacaya waxa kan hogaamiyihii hore oo la saxeexday kaararka codbixinta la wareegaalistaan wixii ka yimaada iyaga mas'uulka ah habeenkii xalay iyo ka horba iyo laba habeen ka horba naftood hurayaal diidan kana soo horjeeda kaararka codbixinta ayaa kulli ka geystay run ahaantii saxaafaddana loo soo bandhigi doonaa
in badan oo ka mida kaararka ay leeyihiin waa codbixin oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada khaatumo qaybo ka mida ayaa saxaafadda loo soo bandhigi doonaa. waxaanan ogolaan doonin waxa halkan ku qoran iyo wax macooda ah toonni inay ka hirgalaan deegaanadayada. ma ogolaan doono ma yeeli doono. waxaanan ogolaan doonin in dadkan masiirkiisa qof intuu kilkilada gasho ku baayactamo. taasina xaasha midaan qaadan karno maaha, qaadanna mayno. haddii cid lala hadlayo, haddii heshiis lala gelayo, tala loo dhan yahay, cuqaasha, isimada, siyaasiyiinta, golayaasha, xaajo loo dhan yahay oo inta geesaha laga fadhiista la isla qaatay waxaan ahayn ma geeyaan. qofna lama humbaalayn karo, cidna kulama fiqi karo dadkan masiirkooda ninna qofna kilkilada intuu gashado maxaan ku dhahdaay kumama baayactami karo cid kale. talada iyo habka aan ku shaqayn doonaa wuxuu ahaan doonaa mid wada tashiya, mid aanaan bulshada ka lahayn, mid aan waxgaradka madax dhaqameedka hadday isma yihiin iyo hadday cuqaal tahayba mid aanu kala tashan doonno oo aanu bedeli doonno maxaan ku dhahay habdhaqankii foosha xumaa, siyaasaddii gurracnayd ee muddada lagu soo maamulayay maxaan ku dhahdaay maamul goboleedka khaatumo. run ahaantii dadka reer khaatumo oo u heelan muujiyeyna rabitaanka maamulka cusub ee ku hagaya rabitaankoodii aad iyo aad baan uga hambalyeynanaa. meel kastoo dunida ka joogaanba dibad iyo gudaba oo u hambalyeynana waana u mahadnaqaynaa. siyaasaddii 3 sano soo socotay inay halkaa ku afkooday waa maqlaya hogaamiyihii hore oo leh war wiilku waxbuu faray dadkii war waxba ma falin, waxay dadku rabeen baan ku hogaaminaya, wixii ay dadku rabeen baan ku hogaaminaynaa. waxaad garan la'ada in lagu diiday baad garan la'ada, in waxaan dadku rabin aad ku hogaaminaysa baad garan la'ada. ilaa hadda dadkuna waaba isweydiinayaan war adagu haddaba miir qabaa mise waa see ka noqoto. wallahi xaaji aad la isu weydiinayo wey. aniguse odhan maayo, aniguse haatan odhan maayo, laakiin faham oo garo in lagu diiday waxa aad wado in la diiday inaanay dadka u cuntamayn. waa weli waxaa igu jira maxaan ku dhahdaa rabitaan iyo dee oday weyno inkastoo waktigii dadku ay dee beeshinka noqon jireenba aad ku jirto haddana laxajaal aya kala hayso waa kaaga turaya maxaan ku dhahdaa in siyaalo fara badan ay wax kaaga dhacdhacaan. oo ku talin lahaa maanta nasashaad u baahanta 80 jir baad dadkana waa khasaaraysa. ar iska naso inta kuu hadhay iska nasaan ku odhan laha. tan rag baa u nool, la yeeli maayo, qoor qabasho cidi biyaha nagu cabsin mayso. intaanu nool lahay annagaa masiirka yaga leh, annagaa ummaddayada rabitaankeeda iyo jiritaankeeda diyaar oo hor rabno oo doonayna. annagaan meel la ula humbaalayn ma geyno xaasha. haddii la hadalka siilaanyo iyo warooyadaa dad u yaqaan annagu cidba uma naqaano, kuna gefi mayno. waxay leeyihiin duulaa kuma yihiin, waxaanu leenahayna uma daba fadhiisanayno, umana daba fadhino. hebel baanu saaxiibnahay iyo siilaanyaanu keer iyo warna uu siilaanyo oday cadahood waxaanu u naqaanaa haddeerto isaga laftigiisu uba baahan in maaragtay isaga laftigiisa in xanaan u baahan yahay. taa aad u baahan tahay buu u baahan yahay, middaa aad u baahan tahay xanaanaad u baahan tahay labadiiba. intaa waxaan kaga tegayaa bulshada reer khaatumo wixii ku qanacsan wixii halkaa ku qoran dee awalba kuwa ku qanacsan oo hargeysa iyo joogay waa jiray. wixii aan ku qanacsanayno qaabka nidaamka cusub ee dib u urashada khaatumo oo ku shaqaynaysa wada tashi, is-aamin iyo rabitaanka bulshada oo wixii khaatumo loo aasaasay ku salaysan. meel kalena aan u socono. haddaanu meel u soconnona dowladda federaalka waa ka tirsan
waxaanu nahay oo u soconnaa oo dariiqayagu yahay dowlad maamul goboleed dowladda federaalka ee Soomaaliya hoosta calanka buluugga ahina waa astaanta qaran ee aan leenahay taasaan aaminsannahay taasaan ku shaqayn doonaa iyadaan ku shaqaynana dhammaan waxgaradka uqaash isimada dhalinyarada haweenka dhammaan ururada bulshada iyo guud ahaanba shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle iyo nawaaxigeeda iyo gobolka Caynba waxaanu si mugle uga codsanaynaa war waxaa laga shaqaynayaa iska horkeen baa laga shaqaynayaa war kuwa guureynaya saraakiisha Somaliland meelaha kula soo shiraya ka shaqaynaya war arrintaasi ma qarsoona war culummo iyo caamo waad ogtihiin arrintaa waad ka dharagsantihiin war waa hababkii maxaan ku raahdaa Soomaalidiidku ay deegaanada ay hadda joogaan waa hababkii ay ku yimaadeen markaaba cid ay u soo adeegsanayeen haddeerna cid ay u adeegsanayaan waad garanaysaan culummo iyo caamagu waad ogtihiin inta mishin ee deegaanada ka dhacay waad ka warhaysaan cid bay adeegsanayaan waxaan odhan lahaa waxgaradka uqaash madax dhaqameedka kale hadday ismeeyihiin iyo hadday nin garbood kala tahay dhammaan qaybaha bulshadu ka kooban tahay in la ilaaliyo nabadgelyada amniga in la ilaaliyo aad baanu idinku boorinaynaa waxaanu kaloo idinku boorinaynaa war khaladaad waa dhacaya ama mid lagu talagalay oo la soo abaabulay ha noqdo ama mid maxaa si kama u dhacabo ha noqdee khaladaad waa dhacaya waxaanu idinka codsanaynaa waanu idinku boorinaynaa oo aanu idinku adkaynaynaa inaad isu dulqaadataan samir la muujiyo la fahmo ujeedooyinka uu cadowgu leeyahay